guud ahaan caalamka islaamka oo maanta loo dabaaldegayay munaasabada iidal adxada awgeed shacabka ku dhaqan degmada saylac oo la wadaagaya farxadda iidal adxada awgeed ummadda islaamka ayaa waxa ay maanta hambalyo iyo bogaadin u direen kadib markii laga soo dareeray salaada iidal adxada ayaa waxa ay halkaasi hambalyo iyo bogaadin u mariyeen TV-ga eryaltv si ay u hambalyeeyaan eheladooda iyo qaraabadooda meel kasta ay kala joogaan iyo sidoo kale ummadda islaamka meel kasta ay ku nool yihiin isla markaasna Ilaahay ka baryay inuu sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan balse jawiga degmada saylac ayaa waxa isagu ahaa jawi ka duwan ciidii hore aan soo dhaafnay taasoo ay ka muuqatay dadka ku dhaqan degmada saylac oo iyagu intooda badan aad moodo inay ka xagaabaxeen isla markaasina u xagaabaxeen Hargeysa Boorama iyo wadamada jaarka halka sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka iyo ka degmadaba ay iyagu meesha ka maqan yihiin balse waxa isagu halkaasi kula ciiday barasaabka xogeenka gobolka Salal Abdiqaadir Aadan Yuusuf munaasabada Ciidal Fidriga awgeed ayaa waxa ay sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u direen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeysay ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasna munaasabada Ciidal Fidriga awgeed ugu hambalyeeyay guusha uu ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaan dhammaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay ka joogto daafaha dunida gaar ahaan waxaan salaamayaa familygayga oo kala jooga Hargeysa Boorame Dirdhabe iyo qurbaha gaar ahaan waxaan u salaamayaa xaaskayga oo joogta magaalada Hargeysa dhammaan waxaan ummadda islaamka leeyahay kulli caam wa antum bikhair anigoo ku sugan magaalada saylac halka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid nabada ciid barwaaqa ciid bashbasha ciideeda ilaahay sidaa nagu gaarsiiyo barwaaqada iyo nimcada iyo bashbashka iyo roobka daay halka waxaan ka salaamayaa ugu horeysiinaya hooyaday Maryam Camir Bade waxaan salaamayaa carruurtayda Ismaaciil waxaan salaamayaa xildhibaanka baarlamaanka ku-xigeenka Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxaan leeyahay jiro joog waxaan leeyahay barwaaqo iyo bashbash ku gaad ummadda Soomaaliland dhammaan waxaan ugu hambaleynayaa ciid wanaagsan iyo gobolka Zeelalba gudoomiyaasheeda iyo maamulka dhammaan iyo culimada iyo dhalinyarta halkan baan aad salaanta haniyada u gudbinayaa dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan shucuubta ku dhaqan gobolka Zeelal waxaa leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciideeda nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo وعيد wanaagsan roobku waa nagu daay dhulku waa nagu qabow yahay alxamdulillah iyo wanaagsan ku jirnaa fursadan maanta waxaan uga faa'iideysanayaa inaan hambalyada gobolka dhamaantii ka gaarsiiyo halka waxaan hambalyo uga direynaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo dhawaala doortay waxaan leenahay hambalyo Allah ku astro xilka weyn ee lagu igmaday ay ku doortaan saaxiibada waxaan waliba hambalyeynaya dhamaantood xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee xisbiga kulmiye oo iyagu si hagar la'aan ugu codeeyay intii uu codeysay intaan u codeyn waxaa leeyahay hambalyo ilaahay ku astro xilka madaxweynaha koowaad taasna waa insha Allah waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Somaliland waliba reer Somaliland gaar ahaan gobolka Zeeral waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan barwaaqo Allah inuu gaarsiiyo roobka iyo rayska iyo nimcada Ilaahay noo shaqeeyo Ilaahay noo barakeeyo waxa weeyaan qadar qaba waxa weeyaan Ilaahay Allah waxa weeyaan barakeeysa dadka noo soo saaro waxaan halkaas si gaar ah uga taanidinayaa ama waan baraynayaa inuu faa'iideysto noo soo diida gudoomiye koowaad ee golaha baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliland ay doorteen Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle oo nin u qalma ku habboonaa inuu mar hore yimaado meesha ayaan halkan hambalyo uga waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow harayna waa ku taageersanaa haddana waa ku taageersanahay waxaan ugu kalsoonnaa xanashada hanatay inta gudoomiyenimada golaha wakiilada Soomaaliland inaad xanatay waxa weeyaan hankii shacabka reer Soomaaliland inaad meel fiican gaarsiin doonto insha Allah taala allana kugu asturaan kaaga way qalqalaya ka salaamaya hooyadiya bahay iyo walaalahay aabbahay hooyaday walaalahay adeeraday abtiyaalada walaalahay intooda waxaan leeyahay ciid muslimiinta oo dhanna
كل وضع ورسلام يا شعب في السيلة يكنا صاير كذلك السلام يا هويدي يا باي والدك يعيد البصر يا باي والدك يقدر ينال الغدر يو والدك وعليه عيد مواد شعبك دقمة saylac وعلي أحمد ديريه ورك eryaltv مقالة saylac